jaaliyada Finland ee deegaanada Cadceed iyo Qarro ayaa soo gaarsiiyay deeq raashin ah dad waayeel iyo maatay isugu jira oo ku tabaalaysan deegaanadaasi. ilaa 60 qoys oo ku kala sugan tuulooyinka ayaa deeqdan waxaa soo gaarsiiyay meelihii loogu talagalay Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan iyadoo gudiyada tuulooyinkaasi ku sugan ay qaybiyaan kaalmadii raashinka ahayd. gudiyadii qaabilsanaa qaybinta kaalmadan ayaa uga mahad celiyay walaalahooda jaaliyada Finland sida wanaagsan ay soo gaaray iyagoo ka warbixinayna waxa hadalooda ka mid ahaa. halka kan waxaynu isugu nimi munaasabadaas oo ah deeq raashineed deeqdaas oo inoogu timi jaaliyada ku dhaqan dalka Finland gaar ahaan jaaliyada walaalaha aynu nahay ee u dhashay deegaanka Cadceed deeqdaas oo ka koobnayd 60 qoys raashinkood waynu ka guddoonay waxaana inoo soo martiyay Sheekh Axmed Maxamed Saleebaan marka hore waa u mahadnaqaynaa ilaahayna jayskiisa wanaagsan Allah ka siiyo marka labaad dadku uu fara badan yahay jilecsani waa 3 point waa number 1 iyo number 2 iyo number 3 deegaanka Cadceed waxa ku soo ragaagay raashinkii 30 qoys 30 qarar ayaa loo diray 3 point koowaad ayaan anagu soo qabanay haddaanu nahay deegaanka gudidii magaalada odayaashii culimadii dadkii waxaa sidoo kale ka hadlay mas'uul ka tirsan deegaanka Cadceed isagoo ka warbixinayna wuxuu yiri soo gaadha ay jaaliyadu soo gudbay idinkaana kowka waana idinku habalyeena mas'uuliyiinta soo dirtay ilaahay garasiiyay dadkeeni tabaala ku dhacday abaaraha ku dhacay saba jooga oo jeetana oo fara badan maanta halka waxaan soo gaarsiisay 60 qoys sida sheekhu soo qorsheeyay dhaqaalaha soo gudbiseen 30 Cadceed la siinay dadkii waa ka tuban 30 qarar loo gudbinayaa waxaan idinku habalyeena bil macruuf walaalayaal deeqdii garadka Alleedisiiyay aqoontii aad ku fikirteen dadka tabaalaysan inaad taakuleysaan aad baan idinku habalyeena ilaahay idin garasiin si kastoo ay ahaato kaalmadan ayaa noqonaysa tii ugu horeysay ee jaaliyada Cadceed iyo Qarro soo gaarsiiyeen dadkooda iyadoo dadkii ay soo gaadheen aad ugu farxeen kana dalbadeen jaaliyadaha kale ee deegaanadaasi inay ku daydaan una soo fidiyaan kaalmadan oo kale. Cabdiraxmaan Cali Ducaale, Home Cable TV, Laascaanood.